waxaan nolosheedii oo dhan ka iibiyey 60 jir malaayiin dollar haysta. waxaan dhiganayay iskuulka waxaana aad u jeclaa inaan noqdo model. waxaana ku jiray wadadii aan ku noqon lahaa. waxaan show kula kulmay nin lagu magacaabo Michael. Michael waxa uu ahaa 66 jir malaayiin dollar haysta, kaasoo qarash gareynaya showga aniga aan ka qaybta ahaa. showga waxa uu soconayay 4 saacadood. Michael intaas waxa uu ahaa mid aniga indhaha igu haya showga intii uu socdo oo dhan. markii ugu horeysay arintaas aad ayaan uga xumaaday. odagan da'da ah sababtoo ah asagu wuxuu ahaa 66 jir aniguna waxa ahaa 21 jir. laakiin Michael arintaas kama hor istaagin inuu ii soo dhawaado aniga. showga kadib aniga asaga waan kulannay. waxa uuna yiraahday gabadhaadan quruxda badan ama boqoradan quruxda badan adiga camal waxa loogu talagalay inaad ku jirto qasri. aniga isoo raac waxaan ku sii doonaa nolosha boqortooyada oo kaleeto. Michael waxa uu ahaa mid hore u guursaday. sidoo kale anigana waxaan lahaa nin saaxiib aan la ahay oo rabay dhawaan in isguursano. laakiin weli Michael waxa uu ahaa mid aniga isku kaydayay inuu ii soo dhawaado. Michael waxa uu igu yiraahday aniga lacagteeda oo dhan iyo malaayiinta haysto waxaan uga tagi karaa adiga daraada. taasina waxa ii ahayd wada gaaban oo aan ku heli karo ama faqriga aan uga bixi karo. taasoo ii muuqatay inaan kula wareegi karo lacagta Michael uu haysto oo dhan. waxaan jaray xiriirkii naga dhaxeeyay aniga wiilkaan isjecleen. sidoo kaleeto waxaan u guuray qasriga Michael aniga igu baaqayay. waxaan aad u hubay in aan jecel ku abuuri doono asaga. kadibna aan noqon doono qofka koowaad oo Michael daneeyo ama uu ka walwalo. taasina ay keeni doonto inuu malaayiin dollar aniga iga tago Michael. wax walba waxaan u sameeyay asaga daraadiis. waxa uu iga codsaday in aan joojiyo kuleedka aan dhiganayay. waana sameeyay oo waxaan ka soo tagay waxbarashadeedii. waxaan u huray mustaqbalkaygii oo dhan asaga daraadiis. waxaan waqtigayga inta badan ku qaadan jiray meelaha dumarka lagu qurxiyo si aan u noqdo mid soo jiidasho badan Michael hortiisa. Michael waxa sidoo kale ay uga codsaday inaan jaro saaxiibadeeda. waxaana joojiyay in aan la xiriiro saaxiibadeeda. waxaana waqtigayga inta badan la qaadan jiray Michael oo aan u raaci jiray meel kasta oo asaga doonayo. xitaa Michael waxa uu iga codsaday inaan jaro xiriirka iyo hadalka naga dhaxeeyo hooyaday. sidoo kale waan sameeyay asaga daraadiisa. waxaan joojiyay inaan ka jawaabo taleefanada wicitaanka hooyada ii soo dirayso. waxaan noqday adoon uu suurwa u maamula Michael. waxaan ahaa mid u karisa cuntada midda ugu macaan Michael. waxaan xiran jiray dharka ugu quruxda badan ee asaga soo jiidanaya. waxaana Michael u qancin jiray si naag kale aysan awoodin inay u qanciso asaga. wax yar kadib waxaa geeriyooday hooyaday. aniguna kama qayb gelin aaskeeda sababtoo ah waxaan dalxiis kula maqnaa Michael. dhab ahaantii wax jecel anigu ma qabin Michael. waxaana jeclaa lacagtiisa. waxaan sugi lahaa waqtiga aan dhaxli doono lacagtiisa. ugu dambeyntii Michael waa uu geeriyooday. anigana waxay ahayd maalinta ugu farxadda badneed nolosheeda. waxaan aad u sugi lahaa marka aan heli doono lacagtiisa oo bangiga la iigu shubi doono. laakiin qiyaas wax la yaab leh ayaa dhacay intaas kadib. Michael wax lacaga igama tagin aniga. wax walba waxa uu ku saxiixay ugana tagay xaaskiisii weyneed. xitaa xaaskiisii weyneed lama iiso joogin sanadihii ugu dambeeyay ee noloshiisa. waxa uu ila qaadanaya aniga. Michaelne waxa uu iga doortay ayada. Michael ma ahayn aniga gabadha uu jeclaa. gabadha uu jeclaa waxay ahayd xaaskiisii hore. anigana waxa aan la mid ahaa mid ka mid ah bombalayaasha guriga u yaala oo kaleeto. waxaan waayay wax kasta aniga oo ceersanaya hanti. waxaan waayay jaceylkayga aan aadka ii jeclaa. sidoo kale waxaan waayay saaxiibadeedii aadka ii daryeeli jiray, talaf wanaagsanna ii sii jiray. sidoo kale waxaan waayay hooyaday taasoo wax walba aniga daraaday u huri jirtay. waxaan waayay wax walba iyo cid kasta oo aniga iga agdhaweed. lacagta waxay iibin kartaa wax kasta. laakiin qiyaas waxaa jira hal shay oo lacagta aysan iibin karin. lacagtu ma iibin karto jaceylka.